الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي شن يسغاشناد هي كتاب كان حكم وفوائد من روائع الإمام ابن القيم رحمه الله الجنة العاجلة. هل كان الشيخ وحكوش يا حكمة عوان لوغا دغاي جنة الدقدقة؟ طبعا وجنة الدون كاللغو هلو انتان تي آخر لقاعدين. المؤمن المخلص لله من أطيب الناس عيشا. qofka mu'minka ah camalkiisuna uu ikhlaaska uu yahay oo ilaahay dartii ula jeeda acmaashiisa waa dadka nolol ahaan ugu wanaagsan weeye. haba lagaa xoolo bato laakiin nolosha aad ku jirtaay waa nolol wanaagsan weeyaan. waa dadka ugu nicmo badan xagga qalbiga ilaahay uu u geliyey. waa dadka laab ahaanna ugu farxad badan weeye. qalbi ahaan waa dadka farxaddu ay ku jirto. wahadihi jannatun caajila, in waxyaabaha qofka lagu siiyo oo qalbigaaga ilaahay dejiyo oo raxmadda iyo tumaaninadu ka buuxdo, naxariistaasi kuugu jirto, noloshaa degan aad ku jirto, waxaa weeyaan haadihi jannatun caajila qabla aljannati alaajila. waa janno degdeg ah intaanban la gaadhin jannadii dambe, intaan la gaadhin oo tii aakharo. waa janno degdeg oo ilaahay uu qofka siiyey. macluumada wuxuu ku sheegay ibnu qayim kitaabkiisii alwaabilu sayibu min alkalimi ayib, kitaabkaasuu ku sheegay. haddaba isagoo sii wadaba wuxuu yidhi aliimaan ina aliimaan almaqruun bilikhlaasi lilahi tacaala. iimaanka lagu laray ama la socda ikhlaas, iimaan ikhlaas la socda waa meesha sacaadada iyo reyrreynta qofku uga timaado. nicmadiisu iyo raaxada naftiisu meeshay ka timaada weye. dumaaniinada iyo deganaanta qalbigiisu meesha ay ka timaada weye. quratu caynka iyo indhihiisu waxay ku qabowsadaan meesha ay ka timaada weye. faaliimaanu walitminaan, haddaba iimaanka iyo deganaanta qofku ilaahay siiyo waa jannatu dunya. adduunka jannadiisibuu qofkaasi haystaaye ogow. jannatu dunya inuu raaxada ruuxu gaadhana waa midda ay raadinayaan kullu naas, dadka oo dhan qofba si uu ku raadiyaba taasuu raadinayaa. laakiin intooda badan akhta'uu sabiilah, wuxuu yidhi dadka intooda badan wadadeeda way gafeen, mana hayaan wadadii saxda ahayd. qolyaha qaar baa waxay u maleeyeen inay raaxadaasi ku jirto fil amwaal, xoolo badan in la sameeyo. bal taa waan ognahay oo qofba qofkuu ka xoolo badan yahay wuu ka dhibaato badan yahay xaqiiqatan. xitaa ma seexdaan oo may soo jeedaan habeen iyo maalin, saasay xisaab ugu jiraan. dayib, qolo kale waxay u maleeyeen inay raaxadu ku jirto almanaasib walkaraasi, mansibka iyo kursiga la qaato, madaxweyne, wasiir, fulaan, baarlamaan in la noqdo. waxaan hadda loo kala carari eed aragteen, ummadda loo baabi'inayo, lacagihii o dhan lagu dhameeyey. qaar baa u arkay inay raaxadu halkaa taalo. iyadana ma taalo. habeenkaasaa walwal kuugu horeeya intaan bal walwal kale la gaadhin. horta naftaadiibuu qofku ka samrayaa in lagu dilay, habeenkaaba ka baqayaanba. mid kale wuxuu ka raadiyaa raaxada shahawaadka xaaraanta ah iyo mutcada, waxyaabaha rakhiiska oo degdega ah oo ayuu ka raadiyaa. ama daroogooyinka kuwan isticmaali ha noqoto oo maanta caruurteenni iyo dhallinyaradeenni ku dhammaatay wadamada reer galbeedka. kiniiniyada, sharoobooyinka iyo qashinka ay cunayaan way ku dhammaadeen. ama ha noqotoba daroogadii kale iyo khamradii iyo wax kale, taasay ka raadinayaan. mutca iyo raaxo ay ka raadiyaan, waana waxaan jirin iyaduna oo ka heli maayaan. qaar kale waxay ka raadiyaan ashuhra, inay caan noqdaan. kuwan maanta dhex fadhiya facebookyada iyo tiktoka wada dhex fadhiya, gabdhihii soomaaliyeed ee sharafta badnaa waa kuwan wada dhex fadhiya meesha. marka ummadan aad u jeeda iyada nafteeda mid waliba milyan baan gaadha iyo maaragtay xaflad baan dhiganayaa iyo fulaanta la wada hayo. shuhradaasa waxay u arkaan ay ka raadinayaan iyaguna raaxadooda iyo caan ay ka raadinayaan. marka ay xaqiiqsadaan mid walbo intii aan soo sheegnay markuu gaadhay meeshuu rabay, kii xoolaha lahaa iyo kii mansibka madaxweynaha helay iyo kii maaragtay khamrada iyo qashinka isticmaalay iyo kii shuhrada iyo caanka noqday, mid waliba markuu gaadhay meeshuu rabay baa waxay ogaanayaan inay ka fog yihiin sacaadadii dhabtahayd. xaqiiqatan sacaadada dhabta ah way ka fog yihiin. waxaa jiray nin heesaa ahaa oo maraykan ah oo macruuf ahaa
oo ilaahay subxaana wa tacaala ka toobad keenay. Masaajidkan aan hadda joogo Seattle Washington ayuu noogu yimid oo weliba masaajidka muxaadara ka dhigay. Waa ninkii heesaaga ahaa oo ilaahay soo hanuuniyey. Wuxuu ka sheekeeyey siduu ku toobad keenay meeshan la yidhaahdo, isagoo tagay imaaraadka xilli horey ahayd, ayuunbuu ilaahay amarkii habeenkii oo dhan baan wuxuu iska soo jeedaa, aadaankii unbaa isku dhacay, daaqad buu iska istaagay, sii fiira haddana qoraxda soo baxeedii, jawigan uu la yaabay. ilaahay baa uun subxaana wa tacaala raxmad soo geliyey. Muhiimadda meeshan uga jeedo, ninkii markuu sheekeeyey wuxuu ka warramay dhibka uu ninkaasi ku noolaa. wuxuu yidhi adduunka anigoo waxaan u baahdo oo dhan heli kara, diyaarado khaasa lagu qaado, hoteel gooni a loo xidhaayo, nolol si gaara loogu sameeyo, cuntadiisa tiim dhan ka shaqaynayaan iyo fariiq dhan ay ka shaqaynayaan, haddana wuxuu yidhi wax dhibka aan ku jiray ma seexan jirin bur, kiniin baan ku seexan jiray. marka aan masraxa imaanayno rabna inaan heesno, dadkan heesa markay rabaan inay heesaan waxaa weeyaan dhibaato badan bay soo mareen, soo jeed iyo rafaad iyo dhibaato iyo kiniin bay ku socdaan, oo intaa ay meesha saaran yihiin ay boodboodayaan, kiniin baa jirkooda ku jira iyo in marka dhibaatadaas ayuu qofku marka qof waliba intaan soo sheegnay meeshii loogu rabay markuu gaadhaba wuxuu ogaan inuu ka fog yahay sacaadada iyo reereynta, inuu ka fog yahay buu ogaanayaa. ilaahay subxaana wa tacaala sacaado dhaba allah ina siiyo, iطminaan iyo deganaan iyo qalbi inshiraaxana allah ina siiyo, iimaanna qalbigeen allah ka buuxiyo. jazaakum allahu khayr, baaraka allah fiikum.